ورويت كبايك خارج وصلنا الوحيدين كنا كوير الروسين أنا كنا وردونا دواعي ولا فرماجها صون نقضوا فرماجها صون نقضوا فرماجها صون نقضوا وكان رئيسنا دولة حسن الشيخ مدالة هرعوا مدالة هرعوا مدالة هرعوا مدالة 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 هرعوا ويلك واحد دلي مدالة ويلك واحد دلي مدالة dadka dhaawacay dadka hadaan la keenin barnaamij joogsan maayo meyd kala la duugi maayo talaajaa la galaa waa maalin kale aan u wanaagsanay dhigaha shacabka Soomaaliyeed waxaan halkay ka sii socota dhacdooyinka urku talada ku reebay waalidiin badan kuwaas oo wali ay la qayl dhaaminayaan waalidiinta cadaalad ay dalbanayaan halkan ka soo hadlay waa meel aan sida ka fogeynin iskooska Siina ee degmada warta nabadda gobolka Banaadir maanta waxa ka dhacday dhacdo kale argagax leh isla markaana uu ku geeriyooday wiil dhalinyaro ah laba kalan ay ku dhaawacmeen waxaana dhibkaasi geysay askar la sheegay inay ka tirsan yihiin saldhigga booliiska degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir falku markuu dhacay waxa halkan ka socday banaabax nabadeed oo dadka shacabku ay sheegeen in dhigayeen isla markaana ay ku dalbanayeen cadaalad darro ay ka talbayanayaan maamulka degmada warta nabadda ee gobolka Banaadirba inta wixii ka dam waxay sheegeen ciidamadu ay risad ay huuyeen isla markaana mid kamid ah dhalinyarada halkan joogta uu ku geeriyooday laba kalan ay ku dhaawacmeen waxa isku soo baxay goobta dadweyne aad u fara badan kuwaas oo banaabax halka ka sii dhigay isla markaana dhammaan wadada xirta oo isku xidhiidhaysa isgooska Siinaay iyo isgooska Farloosa dhammaan baxirtay kuwaas ay sheegeen marnaba inaysan furi doonin sidoo kale waxa xusuuman in halkan uu yaalo meydka iyo sidoo kale dhaawac laba qof kuwaas ay ku tilmaameen inaysan aasi doonin meydka ilaa iyo cadaalad ay ka helaan haddaba halkan waxa la hadlay warbaahinta qaar kamid ah odayaasha beesha iyo sidoo kale shacabka goobjoog ka ahaa si ay wax u dhaceen waxaana hadalladooda kamid ahaa waxaa jira saddex dhaawaca haddii alla kuu roon yahay waxay ka dhigan tahay war may maqlaydin ow waxay ka dhigan tahay 71 72 wixii wardhiglay nagu qabsaday oo afweyna nagu dhigay xasuuqaan nagu socda waxaan nagu socda haybsooc waxaan nagu socda waxaan la aqbali karin mana aqbali doono ra'yigiina waa cabiraysiin ra'yigiina cabira waxa la qaadan kara ma ahan inaan haddii alla kuu roon yahay annagoo nala yaqaan oo maaragtay beel isla ka mida ah deegaankii aan deganayn in aan xaquuq ku yeelo weyno dawladdii dhaxana aan xaquuq ku yeelo weyno wax la aqbali kara ma ahan dawladda waxaan ka codsaa madaxweyne ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka in alla inta cadaaladda u shaqaydo in wiilka dila lagu soo reed xiro lala duugo mana la duugayo ayadoon wiilkayga aan lagu soo ag xirin wiilka oon la dilin ninka dila shaleemada joogaa waa la yaqaan taliyaha shaleemada Siinaay jooga oo shaleemada degan ciidanka degan waaye taliyaha ciidanka la soo xabada ay goorida aniga huba annaga waxaan nahay beesha Maxamed Cabdi dawladdii geedkii sheek dawladda federaalka waa ku qasanahay dawladda Cabdi Qaasim kuma qadin tii Cabdullaahi Yuusuf kuma qadin tii Sheekh Shariif kuma qadin tii Farmaajo kuma qadin dawladda Farmaajo kuma qalin haqaho aanu ka aan lahayn waxaana haqa afar xildhibaan oo leeyahay Waysli afar xildhibaan oo leeyahay haq waxa aha haddii alla ku roon yahay inaan waxba la siin iyadoo Wayslaha aan xildhibaanada lahayn la siiyo agaasimayaashiya la siiyo haddii alla ku roon yahay gudoomiyaashiya la siiyo wax walba la siiyay safiiradiya la siiyay waxay ku darsadeen birigi Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda ilmi dadkii ka shaqeynaya ninkan hadda waaxda laga qaaday adoogiis wuxuu ka shaqeynayay oo loo dilay oo u dhintay degmadan dadka dhaawacay dadka hadaan la keenin barnaamij joogsan maayo meyd kala la duugi maayo talaajaa la galaa madaala haraco wiilka waxaa dilay madaale maxaa ku dhintay cunugayna ardaga oo waxbarasho ku jira maxaa ku dhintay
mooryaan ma ahaay qore ma watay macidow dhacaaya maxaa nagula dilay yaa dulmacaa nagula dilay saamahan waxaa waaye bahasha hadday ka badato wuxuu dheriga kuleelka caaga isagoo karka annaga waana la karkash wax walba nagula sameeyey wax kaas anoo ku fadhino ku dhiman balse anagoo jooga ilmahayna aysan waxaan sameeyey gabdha inbaa dharbaash indhaha goys naag maa naag dharbaaxi karto waxay ku faanaysaa maahan oo qorga iyo shaatiga dawladda halkan oo isgoyska Siinay waxa ka socda sida u jeedaanba banaanbax xoogan sidoo kale waxa halkan yaala meydka wiil dhalinyaro ah oo ay sheegeen dadka halkan ku banaanbaxaya inay dileen ciidan ka tirsan degmada warta nabadda dadkan ayaa sheegeen in marka hore ay dhigayeen banaanbax nabadeed oo ay ku doonanayeen xuquuq ay leeyihiin oo degmadaas ay ku leeyihiin kadib markii la bedelay mid kamid ah gudoomiyaasha degmada ee warta nabadda balse banaanbixii oo ay saacado dhigayeen kadib ciidamo ka tirsan degmadaasi sida ay sheegeen ay halkan ugu yimaadeen rasaas ay ku fureenna qof uu ku dhaawacmay haweeney ah halka wiil kale oo dhalinyaro ahna meedkiisa wali aan la qaadin isgooskaana uu dhaxyaalo waalidiinta dhalay wiilkaasi ee geeriyooday ee ciidanku ay dileen ayaa ku dul ooynaya iyagoo sheegeen in cadaalad ay u baahan yihiin sidoo kalena dadka halkan ku banaanbaxaya waxay carabkooda ku adkeeyeen in halkan ay ka tagi doonin ilaa ay ka helayaan xuquuqdii ay u baahnaayeen iyo xuquuqda bannaanka u soo saartay si ay u helaan waxaa naga maqan xuquuqaa naga maqan gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaale Saynab Xaabey waxaa naga maqan xuquuqaa naga maqneed xuquuqdeena u doodayna ma asan baa nabad ku haysanay Saynab Xaabey waana laysay taliya saldhiga inoo soo dirtay waana laayay 20 jir meesha dalooydii ku soo gorsay yaay muroolay ku soo gorsay aan banaanbaxa ku jirin oo guriga ku dhashay joogo wuxuu ku kaasay guriga ku dhashay joogo ku dhintay waxaana dad go'ay oo ba'ay oo lagu tuntay oo mataqaanaa suxuniyo loo isticmaalana 20 jir meesha yaalo xuquuqdayna rabnaa 20 jirkayna dhiigiisa rabnaa waa in dhakhtar waa in naar laga maqaara mahiiso inta adduunka la roga miiso ala adduunka la roga asoo miisay boonka qayam lagu dhawaaqo oo yeeran ku dhaa asoo bartiisaya bal duuga ma la duuga anaga waxa sababta u banaanbaxay waa sababta ah hay'adina nabadeena u banaanbaxeenay gudoomiyaheena la riday gudoomiyaha mahad maxamed jamacaala u banaanbaxeenay maxkamadeed geedaan u banaanbaxeenay mid labaadna maanta waxaan haystaa wiil walaalkeena oo waxaleen in xabad lagu dhufto askari dawladna ku dhufto dawadeedna oo sameeyo inuu dhisiga lagu weeraro sida nalkan war dawladda taliyaha degmada Wardhiigley ciidanka la socdeen mid ka mid ah aad dila anagana goob joog oo ahna dhiigaas gacmeena ku yaalo ma garatay ilugu hayna dhaawacyadan qaadnay marka waxaan cabasho ka nahay gudoomiyada xabsay hadaana laga qaban wallahi billahi tala degmada ugu tageena been sheegay anaga banaanbax waxaan ku raadinaynaa xuquuqdeena xuquuq anaga naga maqan baa ku raadinaa anaga gudoomiyaha waxaan ka qabnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir cabasho ka nahay anagoo cabashadeena macnaa waxaan ka cabanaynaa gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha siyaasadda amniga siyaasadda ee Wardhiigley gudoomiyaha waxiidii taliyaha nabad sugudi agaasimayaasha xuquuqda maxamed macalin ee lahaayeen ayaa lagu tuntay mana ka yeelayno degmada Wardhiigley gudoomiyadaasna cabasho ka nahay waana cambaarayna dawladda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegaynaa Wardhiigley anaga daayarsinana nama matalaan dhimashaan haysana burbur hantiyada haysana dad walaalaha oo wada dhasheen Saynab Xaabey inay isku dirto ee u kala dab qaad haday rabto gabar intay naga dambayso Siinay shalayna Maxamed Cadaalahay maantana Maxamed Cade 4.5 Saynab waa naga bargidira degmadeeda kuma haysano xibintaadana kuma haysano xibintaadana ma nagu haysan karto waxaan ka cabanaynaa gudoomiyaha waaxda ee gobolka Banaadir gudoomiye ku xigaanka Madaale warta nabadda joogto aniga shucuurteeda ma bahadli karo meyd baa hoos yaal wiilkayga aan kor taagana meydkiisi awlaadayda dhaawaceeda hantidayda burburkeeda laamigan ka tagi mayna ilaa amnigeena laga sugo laamigan ka tagi mayna ilaa xuquuqdan ilaa dawladda ilaa cadaaladda aan ka helno waa say u bilaabatay wabillahi tawfiiq dhiiga lagu dhaqaaday tahay dhiigi waa u taagan gudoomiye la bedelay gudoomiyaha maadi maxamed jimcaale iyo cabdirashiid
وأوعي حقوقي أولهاي أوعي أي قضتي كرسي جانيان أبهنا كرسي جانا عنك عسكري باشا معلم بلا وكسكو باشا محمد عدي هدانا قبل أنت إنك تنبيسو وأوتاعنا كرسي جانا مين لقى حاجي كرا من لقى حاجي كرا اسكو دوبني متى مودي مناينا ثاني وكوسا سعنا متدالا وكوسا سعنا مدالا وكوسا سعنا دمش عديارنا ترقنا عيسنا الشباب كحريني أديك أنا حوجا كأجو حرينا حوج حابسدا دبك قبنا waxay u baratay xaafadaheena Siinay inay xoobaheeteen jajabisoo qabsato wiilkan hadda ee bedelayso degmadan aabihiisa u dhintay ayada waxay u doodaysaa inay meeshan u dhaawacto ma fahantay ciidan ay nagu soo weerartay 4 sac dhibaatadan ay nagu sameeysaa annaga ina iska celinaa diyaar u nahay halka lagu dilay wiilan laga dilay gabarna waan laga dhaawacay annaga Siinay annaga iskale Seembir waxay u baratay inay jajabiso ma fahantay wiilkan woona matala degmada asaga iskale asiga aan xukumo marka adinko cabashadaas dhigaya wiilkan hadda la dilay moos ku jirin seen xabsadaan soo weerta 4 sac waxay u baratay inay nagu maad annaga nagu maad ma ka yeelayno waan iska celiyeen